deeqsi amiin aryaadaha allah u naxariiste madaalihii hobalada waa beri cumar cabdulle shooli waa xijaabta ee halleeska cafiyo war aniga waxaa iigu darayd marxuumka allah u naxariistee saaka markaan idaacad ka dhegaystay maaweeliyihii hobalada waa beri cumar maxamed allah u naxariisto markaasaan neerafoose inta ku noqday baan iska damiyey raadiyihii marka waxaan odhan lahaa wariye ku-sheegyada wararka sheega wakhtigan waxaad taqaaniin sheega waxaadnaan aqoonin ha sheeginine war wakhtiga la joogo jahligu wax cudurdaara ma leh marka wariyaha madaalihii inta maqlay maaweeliyaha dhahaayo waxay caddaynaysaa inuu xataa internetka uusan gelin oo uusan fiirin waxa uu ahaa war aan helkaasmayn liyaabad shalay ma idaacadda ka dhegaynsadaayey 5 carruur ah ayaa xeebta ku qalibmay ayagoo badda ku dabaalanayay kii hana sadoo dadka dhex jiraan aryaxaad ula yaabaysaa wa'da iyo ba'daba kale ma yaqaaninoo kuwa cawad iyo mugay warka akhrihayaan haween wanaagsan ku dhahaya subaxina suwax wanaagsan ma arkino areer cabdullow waanadaas waa kaa qawa haye arkahee hadda xaan idin lahay war miyaadnaan arkin weriyaal lahaya maxkamadda ciidamada qalabka sida war haanoo leeyin mid dheegne maanta waxaa la furay kala fadhigii baarlamaanka madeeyow adiguna dadaad la yaabaysaa beri gashow dhahaantaana lagaa fujila'ya war miyaadnan arag wale dabley huwaysan oo baskoolada wadata guddoomiyaha gobolka kuwa dhahayana yaa miidinkaan maqal dagaal lama khawiil u dhexeeya aad dhaca iyo koo leh waxaan kaloo la yaabay kuwa dhahaya 4 darjiino war sidoo kale miyaadnan arkin kuwa dhahaya xalay robaba magaalada ka daayay ekas kontarool waxaa lagu arkay lagu gacano mataana ninkii dhahayaa idil joogaba maxaad ula yaabaysiin ummadda kale aryaadhaha ma waadan maqlina qarax dhacay dad ku dhaabacmay istibaalka la keenay mar dhowna waxaa la filaa dhaabaca inay u dhima doonaan war waa nala fogaatay war xumada wariye isku sheegyaduye qaar badan oo af soomaaliga yaqaanoo wariyaalihina waa jiraane allah u naxariisto cumar cabdille shooli madaalihii hobollada waa beri samir iyo iimaanna allah ka siiyo bulshada gaar ahaan qaraabadiisii aryaadhaha maaweeliyaha hobalada waa beri kuwii saaka dhahaya waxaan ku soo xusuusnay faatumo qaasin hilowle allaho u naxariistee markii ay dhimatay mid wariyahu waxau maqlay faynuustii fanka mugaasow idaacadow jooga inya ku soo kallahay oo wuxuu yidhi allaho u naxariisto faynuustii faatumo qaasin hilowle warnimayow allah u naxariistay intii dhimatay ee inta nool waxaan dhihi lahaa dadka iyagu hoggaan maamuliya madax hadduu waayey miyuu waayey shacab geeska mara moolkan lagu tuuray milatari difaaciya hadduu xoog mitida waayey dhallinyaro midowdiya miyuu waayey qalin maallo haddii uu maxkamad caadil iyo sheekh muftiya waayey miyuu waayey shayb kala maslaxa laba ismaagaysa hadduu oday mas-uuliyad gutiya maato koris waayey miyuu waayey wiil aan mushkilad kula dhex meeraysan warlanjirin hoob caafimaad waaye dhimasho mu waayow allah u naxariistay gabagaa waxaan ku soo xasuustay abwaan maxamuud cabdille coofey shariif soomaali tixdiisii ahayd haddaan weynay walad khayr qabo oo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuryeeya ardadkan tuuryuuma naqatee ilaahay waxaan soo marna nuguma soo celiyo allahana na dhaafsho wixii dhiba war waxaan maqli jiray wiil hadduu adeeri waayo abti ma waayo warnimayo war ma haysiine roobow iyo guriga uu ku xirnaaba qaylaa ka soo yeertay war ma gurigiyaa karoona ka dumiyey aryaadhaha hadda ka hor nimaa yidhi waa u malaynaya kaneecaddaanu inay ummadda laynaydo war roobow sidii abdijanaaha antilahka dhaayarmad iyo doon la saaray war baayo bakool miyaa xeebla xaggee doon loo saarayaa asaga xeeb uu samaysanaya daaqaduu ka baxo keliya ma loo bannayn karaa war dogiya heebta baraaw nabad inolali usaahirtiya roogda waray shabaydhibo miyaa haab ahayn war waad waalan tahaye nin la dayn rabaahe wadda ma waayo war warkaa naga dhex gelinine askartii roobow ilaalinaysaa dagaashaa la yidhi mid ka mid ahna waa la dilaa la yidhi xildhibaan maxamed xasan idrisle wuxuu yidhi dagaalka askarta waxay ahayd shirqood lagu dili rabay roobow madaxweyne farmaajona 10 jeer aan u dignayuu yidhi war markay u digaayeen in askartu dagaalami doonto miyay ogaayeen maya in roobow ula booc loogu tukubayay ogaayeen isin ushishukaayad madika dam usi dilaala kala ballamay war maxbuus lagu kor diriray dil uma dhinno war roobow weli waa nool yahay warka naga dhegaysta xildhibaanku wuxuu yidhi hadduu roobow dembi leeyahay berri maxkamad hala keeno haddii la rabo beenbeen in lagu dilana farmaajo taas ku fakan maayo ma astaanta qaranka in loo dhaartay arrinta roobow gaartay waryaa 4.5 horta waa laga shalgaadadi waryaa jooga albaabka aad
gargaraacaysaan xaafad maahana waa xabsi waxaa kaloo mugoo warramaya xildhibaankaasu yidhi madaxweynuhu gurigow ku jiro sharciyow ku joogaa sharci darre in dad ugu xirraadaana sharci naqamayso odagu lamadaas arrimood hees waafajiyahe war anugu maxbuus siyaasad u xihan oo aan maxkamad la geynayn milatari xoog ku qabsada dalaan ku arki jiri war miyaan laysu ekaysii karin heetaas masale garuungun isku duub ahaahe aryaadhaha waa lay doorta waxaan rabaana suubiha nabeetaasu socamayso war nimayow waxaa la yidhi qidadan samaystiiyo qorshihii jacaylkuba qalqallooc ka bixi waa khudbadaha xildhoonkiyo sida madaxda qaarkood ballanqaadyadoodii dadka lagu qaldaayoon hadhow qodob la fulinayn ummaddii ku qanacdana dib ka qoomameeyeen xitaa waan qiyaanoo sasabiya qalqaaliya been qiimo badan iyo qarash layska dhiibiyo heblaqaaliyey iyo hadal lagala qiil waa ee qaab kaleetiya qasab igu jeclaaw iyo qori caaradiis iyo feer iyo qaninyiyo qoolsagaaryo iyo xoog ma ku raadsadaa qoys dodda aad tirisa iyo dulmiga waa kula qabnaa qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la qasaarinayaa qalad baa qalad lagu sahayaa warnimay waxaa la yidhi dadku jaranjar maaha iyo biraad jaga ku doontaaye war ha cagajuglayn waan ognahay jaaska aatumiy warnimayow madaxii hay-adda aamin ambulans dr cabdilqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan wuxuu yidhi kama qayb qaadan karno gurmadka koronafirus sababtoo ah shaqaalayn uma tababarnou yidhi qalabkiina uma haysano layskaga difaaci lahaa dowladda iyo hay-adaha kalena wax taageeraha oo gaadiidkeenna ay siiyeen ma laha digtoorkaasi daacadsana yaa yidhi soomaaliya loo soo tababartaa waa lagu tababartaa war waxaa la yidhi daryaan culusu goortu dhaco siiga koru duusho ama ay dil wadareed dhigaan ururadiimeedku degdega ambalaasyo u tagoon daahin baa jire dadaalkay wadeen iyo maxaa aamin lagu diiday dembi miyay galeen dhaawac bay daabulahayeen aryaadhaha dictor cabdiqaadir seefweyn wuxuu yidhi 14 sanaan wadnay hawshaan welina dawladda garab iyo gargaar kama helin war intaas soon garab helin hadduu shaqaynayo madaxweynaha dalka isagaa istaahilay maala doorto waa codaysay war ma haysiin dawladda Soomaaliya waxay sheegtay canshuurtii iyo raashinka in ganacsatada ay ka dhintay qaarna ay ka dhaaftay marka ganacsadii raashinka qaaliyay asigaa dambiga leh baylina wuxuu yidhi cudurkaan gaarta qaba lacag uu na dhaafiyay allahna dhaafiyo war madaxweynaha Puntland Saciidani maanta wuxuu cafiyay 200 maxaabiis waxaan salayaa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu cafiyay 12 maxbuus marka ma intaas u xirreed mise wuxuu ka baqay cafiska war ma haysiin Puntland wadaadkii la dhihi jiray Sheekh Rusheeye dambi ku soo hoogtay waxayna tiri wuxuu maran habaabiyay coronavirus dadka uu hayo anigana daawo hayo yiri inuu Rusheeye una rabaa bar coronavirus kan dunidii ka yaabtay ninkii daawo u haya muxuu Mareykan u geysan waayay halkaas lacag badan ka soo heli lahaay war madaxweyne Donald Trump wuxuu yiri lacagtii waa ka goostay WHO kadib markii corona wax ka qaban weysay war ma haysiin Kismaayo laba nin oo corona qabta ku fakatay ilaa haddana waa la raadinayaa dadkana kala orday galeen war labadii Hargeysa ku fakato ninku yiri ana ila barjeynayaan ma la soo qabtay horta 32 Muqdisho ayaan hore corona laga helay xagee joogan war hada Cabdi Xafiid wasiirka Nairobi ku karantiilay ha la yiri ma fakaday war farxii murad ma ku sheegtay war agaasimiyo on cable ilig imaaraadku ku karantiilay ha la yiri ma fakaday ma dul yara ku sheegay war dul yarka laftiisu gaalkaayo ku karantiilnaaye ma dadkaaga dhinac ka raacbaa la yiri war gaalkaayo karantiilka goorma yeelatay miyaan qoor iyo xero lagu dhaarin yaa dul yar qoor iyo xero ka aaminaya mugga war wiil yaroo kalamaan inta ay jirta ku taxnaayo duubaayay dadkii xaafadiisa waxay u bixiyaan Abuukar Kalamaan annaguna waxaan leenahay Abuukar Kalamaan oo kalamaanad ka mid tahay war ninkaas waa haydhiska kalamaana soo dhaweey aryaa haydhis ma naqaan ma kaydki kalamaanaad ka wadaa war ninkaas dulqaad horta uu leeyahay duu muddo badan duubaayay gabayga hankoolka heeydooda Cabdulle iyo hiiri madaysa war intaas kaliya ma duubine Cabdikuus iyo Macluul Muuse Joox codadkoodiiba soo duubi mayn war ra'iisul wasaare Khayre oo xafladda xilli wareejinta qoor qadka telefoonka uu qayb galay wuxuu yiri aniga fiqiga isku soo aadnay fiqiha hormaro kadibna fiqi wuxuu yiri ra'iisul wasaaruhu ha galo kadibna Khayre wuxuu yiri hadda way hadii doonta xilligan hadii la hayaa Khayre isku soo aadiyay haddaba galay hadal kadibna fiqi wuxuu yiri ma ra'iisul wasaare waa fasaxan tahay maadaama galmudug ma toosisay kadibna Khayre waa qudbeeyay wuxuu yiri
yidhi caawa waxay ahayd inaan joogo xarunta galmudug ee dhuusamareeb waa habeen taariikhi ah safka hore waxaan dareemi karaa inkastoo aan idinla joogin in xarfaan culus ay fadhiyaan galmudug midnimada hala ilaaliyo horta reer galmudug khayra abaal bay u hayaan saan isleeyahay waxaana la yidhi hadduu labadii urur oo na dhibay khayra ka adkaado arrin lagu heshiiyana galmudug dib uga aasaaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsado warwar ma haysaane wariga gurbi maanta maxkamadda la soo istaajiyey agaasimaha goobjoogna wuxuu sheegay inuu xanuunsan yahay war gurbiye haddii la soo gurbiyey waa xanuunsan yahana la yidhi meeshii dadka karoonaha qaba lagu gurbinayo ama lagu gurbiyo asagii karoona gurbiye war gurbiye haddii maxkamad loo soo gurbiyey alaabtii waa la gurbsado oo yidhi ciddii gurbsatay inuu caddeeyaa laga rabaa warwar ma haysaane ayadoo karoona jiro ayaa kuuriyada koonfureed doorasha ka dhacaysaa haddayba taas kuuriya ka jirto nabee taanyana dib loo dhigi maayo war adiga ma musharaxaataa doorashadan maxaad ugu koolaysanta war cabdiraxmaan bishukur doorasho kama hadlayna wuxuu yidhi markii weriye washington jooga loo hanjabaayey waan filayay inuu weriye muqdisho jooga la xidhaayo balse u malayn mayn in farmaajo uu xidhaayo haddaba yaa ku yidhi farmaajaa xihay waa yahay mafaadaa xihay war gurbiya asagaa wax la gurubsada sheega waana la gurbiyey aryaa awliyaadaasi marka la gurbihayo